celinaya dhalinyarada maanta qada sharaftan ku maamuustay gudida guud ee reerka beelweynta Subeerwal ee dhalinyarada dalada Baraarug ee madaxdoodii iyo golahoodii dhexe iyo xubnahoodiiba wiilal iyo dhalinyarada iyagoo le maanta halkan isugu keenay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayra awalan anigoo ku hadlaya afka madaxda dhaqanka sidii madaxdii dhaqanka iga horeysay ee beelweynta Subeerwal ay sheegeen مسؤوليتي ملكي ماموسكي مقعي ودبي يعني وقوة هذايا وحن صور ويننا تدال كدليرة وحن صور ويننا وحقبت كدليرة وحن صور ويننا اسقطوا بنانتا يمدني ماذا يوذ الشركة جودهم بلا سبير ولا دليرة دلة برارو أي موجسي دلة جودة دليرة سبير ولا برارو أيها المشرفات كم أمسي جودة جودة بيلوين تسبير والكوا سودوان لدورتي مناسبة دنا واحد مسير سرا لوسو أجاس ما كقيب جرنا مسؤولين كردوان أي كم إذا هين وسير روح اللي بعنا جلد ديجان يا برلمان قدوميال جاسميال جودة ماريال سياسيين قويها وحجرده مدح رقميدا كم إذا هين سلطان كجودة سبير والسلطان ندى عيسى موسى سعد موسى haweenaya dhalinyaro tiro badan ayaa ugu horreyn waxa madasha ka hadlay xogayaha guud ee daladaasi Baraarug Maxamed Cabdi Yuusuf Saxane gudoomiye ku-xigeenka daladaasi Faadimo Muuse Cabdilaahi kuwaasoo iftiimiyay muhiimadda munaasabadan iyo sidoo kale shaqooyinka dhalinyaro ahaan iyo daladahan ay ku hawlan yihiin kulay madashan isugu nimidnay maanta waxa weeyaan inaynu maamuusno gudida Subeerwal salaadiinta iyo dhaqanka iyo odayaasha wada iyagan maanta aynu casuumada ugu sameeyno aynu dhaana maanta hogaamiya hor kaca maanta halka alaaga loo jihaysaan ka dhalinyaro ahaan baan anaguna ku jihaysnaan ayaan leenahay gudida maanta aynu halka ku maamuusayno Subeerwal dalada Baraarug waxaan aasaasnay 2021kii waxaan u aasaasnay markaa dan taagnay oo markaa ka dhaxaragnay Subeerwal aan ka dhaxaragnay anagoo markaa arki weynay dhalinyaro Subeerwal oo isku duuban oo meel wada jihaysan oo maanta la oran karo dhalinyarada Subeerwal baa waxa ay jihaynaysa oo hawsha wada la oran karo aan hore u arag taayna anagu boos ka buuxino ka Subeerwal ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan baan boos ka buuxino ayaan 2021kii aasaasanay markii aan ka soo noqonay doorashadii golaha wakiilada iyo golihii deegaanka ee isku sidkan laga soo noqday dalada Baraarug waxay ka kooban tahay afarta gobol ee markaa ay Subeerwal degaan waa Togdheer وصاحل ومروجة وهرجيسة يقبل كجبلية وقبل كائن تطبعات السواق الرئيسمان لأنه يهي أي دلالة ستة سوق حلو كشاع كوريا لبعتنكي إلا إمي كوحي وتاجنت هاي كشقين تدناها Subeerwal runtii dalad waa dalad dhalinyaro dalad ku bahowday oo ka kooban rag iyo dumarba waxay ku sifaysan yihiin dhamaantoodba inay yihiin dad aqoon-yahana oo wax bartay waa dad volunteer ama iska wuxuu qabso ugu shaqeynaya ummadoodii oo Ilaahay garansiiyay runtii waxa xusid mudan dhalinyaradani waxay u taagan yihiin ilaalinta qaranimada Soomaaliland intaasi kadib waxa iyaguna madasha lagu soo dhaweeyay xogayaha guud ee gudida beelweynta Subeerwal siyaasi Cabdiraxmaan Cadami oo xubinka gudida labada gudoomiye ku-xigeen ee gudida iyo sidoo kale xubnaha ay kamid ahaayeen wasiirro agaasimayaal gudoomiyaal maariyaal xildhibaano madax dhaqameed iyo xubno kamid ah ka soo qaybgalayaashii munaasabada kuwaas oo bogaadiyay mas'uuliyiinta dalada Baraarug waxaan jecelahay anigoo ku hadlaya magaca gudiga guud ee Subeerwal inaan halka kan uga mahadnaqo dalada guud ee dhalinyarada Baraarug oo maanta munaasabada tan weyn ee la isku arkay inoogu sameysay casuumadda aad iyo aad baan magaca gudiga Subeerwal ee guud aan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran laakiin waxaan ku hambalyeeynaya sida barishuurkiina ka akhriyay amba hadaladiina hadda ka dhadhamiyay inaad tihiin dhalinyaro isku duuban oo committed ah inay u shaqeeyaan deegaanadii ka soo jeedaan Allah idinku garab galo shaqo fiican baa haysaan cid waloo shaqo fiican ummadda u qabataa amba deegaana ka socdaan amba qaranka ka socdaan Ilaahay baa ka abaalmarin ajirna wadinkeeda waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin casuumada ballaaran ee tolkiina u samayseen maanta aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waa idiin ducaynanaa haddii odayaashii aanu nahay waana idinku mahadnaqanaa geeljiruhu wuxuu yidhaahaa geelu markuu tarmayo waxa lagu gartaa aaranka yaryar ee daba socda
ummadi markay kobcayso arrimaheegu hagaagayaan waxa lagu gartaa dhalinyarta baraarugsan dhalinyarta wacyigoogu sareeyo dhalinyarta waxbarata dhalinyarta jiilka ka waaweyn wax u sheegta aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mahadnaqayaa dhalinyarada Subeer Awal dalada baraarug ee soo qabanqaabisay casuumadan iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazakumullahu khayran jazaa sidaas la mid ah waxaan halkan uga ducaynayaa dhammaan dhalinyarada Subeer Awal Allah barakeeyo abliyeenamaba ilaahay ha ka dhigo kuwo cududoodu midaysan tahay oo taladoodu midaysan tahay oo arrinkoodu midaysan yahay oo ku xidhan hal doorkooda iyo odayaashooda waaweyn iyo dhaqankooda iyo madaxdooda Allah ha ka dhigo dhalinyarada guud ee Subeer waxaan uga mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qadarinta iyo maamuus kale ee ay u casuumeen guddida guud ee Subeer Awal iyo salaadiinta iyo mas'uuliyiinta golaha wasiirada cid kasta oo madasha fadhida dhalinyarta waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan laab furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay adeerayaal kuwii guulaysta ee hana qaada ee loo midhahooda la maraafacadsado Allah idinka yeelo marka hore waxaan idin leeyahay hambalyo aan idin leeyahay qodobo waayo wax cusub baa abuurteen dhalinyarada Habar Awal baa abuurteen awal qoys kastaba yarbu meel magaranaysa gooni ugu xiriirsanayay haddaa mid guudo Habar Awal samayseen waa idinku taageersanahay waana idinku garab gelaynaa weliba waxaan doonayaa aan dawaanada sii badantii waa idinku garab gelaynaa waxaa la ariyo wixii caawimaad nooga baahda haddaan dhaqanka nahay waa idin garab gelaynaa waxaa kaloo u mahad celinayaa dhalinyarada maanta qada sharaftan ku maamuustay guddida guud ee reerka beelweynta Subeer Awal ee dhalinyarada dalada baraarug ee madaxdoodii iyo golahoodii dhexe iyo xubnahoodiiba wiilal iyo dhalinyaraba iyagoo le maanta halkan isugu keenay waxaan leeyahay jazakumullahu khayra awalan anigoo ku hadlaya afka madaxda dhaqanka sidii madaxdii dhaqanka iga horeysay ee beelweynta Subeer Awal ay sheegeen مسؤوليتي ملكي ماموسكي مقعي وقدبي يعني وقوهضيا وحن سود ويننا تذلك دليردا وحن سود ويننا وحقبت كدليردا وحن سود ويننا اسقطوبنانتا iyo midnimada iyo wada jirka guud ahaan beelaha Subeer Awal ee dhalinyarada dalada baraarug ay muujisay marka hore waxaan u mahad celinayaa dhalinyartan baraarug oo dhalinyar qiimahooda iyo sharafkooda leh oo maanta magaca kaliya ee ina midaynaya ay tahay kaas Subeer Awal way jiraan ururo kale oo nin walba sidaas gaar u sheegay qoyskiisa yar ula baxay group ama hogaamiye ama aqoonyahana laakiin inamadani maanta Subeer Awal kaas baabay doortay in deeqaya siyaasiyan iyo reernimada aad iyo aad baa wanaagsantihiin casimadan sharaf kale ee afiseen waan idinka mahad celinaynaa inamadaas han kale ee sidaa u sameeyay aan si dhow baan ogahay namada waxa weeyaan hadday salaadiin tahay haddii ay tahay guddida aynu maanta la magacaabay hadday tahay nimanka Subeer Awal dawladda ku jira haddaan inamada lala shaqeyn oo aan xil la iska saarin oo aan si dhow hadday dhaqaalaha hadday xoojin tahay hadday wada shaqeyn tahay aan la dhisin iyaguna waxba ma noqonayaan inagana waxbay nooma anfacayaan daladu shaqo badan bay qabatana waxaan isku baranay ololihii kaar qaadashada san 21kii ilaa safarkii maalintii dhaweyd inta deegaanada beesha la marayay si fiican bay uga shaqeeyeen run ahaantii aad baan ugu mahadnaqayaa guddidana waxaan leeyahay shaqadiina Allah idin fududeeyo shaqo badan baa idin taala beelihiina waa idin wada sugayaan samsam baa safarkii ka sheegayso waxaan filayaa wixii kale hoos baa la isu odhan fariin badan baa nala soo faray fariinta ugu weyneed waxay ahayd waa anagu xaggeygii diyaar baanu ka nahay xaggiina waxaan arkaynay siyaasiyiintii oo yaacyaacayse shacbigu ma la mid baad tihiin mise halkiinii baad joogtaan runtii waxaan aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada baraarug
casuumadda qiimaha badan ee ay samaysay oo runtii ay ku dhiirigelinayso kuna bogaadinayso guddida cusub waxaanu rajaynaynaa guddida cusub ee dhalinyarada casuumadda ay u samaysay in ay fulin doonaan kana shaqayn doonaan hawsha iyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday farxad bay inoo tahay maanta inaan ka soo qayb galno madashan lagu maamuusay guddida Subeer Awal ee ay noo fidiyeen dalladda Baraarug intaan ka ogahay uun baan ka sheegaya dhalinyarta Baraarug waa dhalinyar isxilqaamay dadkan imika waxaa aad ugu yar in qofku isku xilqaamo danta guud qof walba wuxuu jecel yahay inuu dantiisa gaarka ah ka shaqeeyo aad iyo aad baan u hambaleynayaa dhalinyarta isxilqaantay ee weliba isku xilqaamay hawlo dawladuhu inay ka shaqeeyaan iyo inay ka shaqeeyaan institutionska civil society-gu ah inay isku xilqaamaan ay cilmi baadhis sameeyaan deegaanada tagaan iyagoon cidna gacan ka helayn mar labaad iyo mar saddexaad dalladda Baraarug waxaan leeyahay waan idin garab taaganahay kaagaasiga guud ahaan iyo ka madaxda ku jirta xukuumaddana horena waanu ula shaqaynay imikana diyaar baanu nahay inaanu la shaqayno waanu mahadnaqayaa waana bogaadinayaa dalladda Baraarug markii koowaad maaha marar fara badan bay kulamo noocan ah qabteen maanta inay guddigii Subeer Awal markaa maamuusaan ee sharfaan aad iyo aad baad mahadsantihiin annaga nagu matalaysaan waa mahadsantihiin guddigan cusub ee la doortay reerku wuxuu leeyahay 3 guddi 3 guddi bay ka yimaadeen iyagaa reerka hogaaminaya iyagaa reerka horkacaya dhanka guusha jirtay u horkacayaan xukuumadda kulmiyeed iyo Muuse Biixi Cabdi la doortay lagu horkacayaan aad iyo aad bay mahadsan marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa dalladdeena Baraarug anigu dalladan ka mid ahay oo dalladda qayb baan ka ahay alxamdulillahi rabbil caalamiin waan uga mahad celinayaa runtii waxqabadkooda iyo runtii dee halkii maanta gaadheen waxaa kaloo laga mahadnaqayaa roolkii muuqday ee maalintii dhaweyd socdaalkii madaxweynaha gobollada bariga uu ku baxay ay ka qaateen runtii waan idinka mahad celinayaa qaybihii dambe ee munaasabadda ayaa waxaa halkaasi ka soo jeediyey hadallo mahadnaq u badnaa guddoomiyaha dalladda dhallinyarada Baraarug Mubaarak Shiine Xuseen Xogdoon kaasoo dhammaadka hadalkiisana masraxa ku soo dhoweeyey guddoomiyaha guud ee guddida Subeer Awal Maxamed Aw Aadan Weyrax iyo xubno wasiiraa ujeeddada meesha loo yimi maanta waxa weeyaan waa inaynu dhiirigelino odayaasheenna qiimaha badan leh oo aanu idhaahno waa mahadsantihiin sii socda garabkiinaanu taagannahay ujeeddada aanu xafladda u samaynay maanta waa dhiirigelin guddida guud ee beelweynta Subeer Awal ee maanta laga bilaabo hoggaamin doonta beesha faca weyn ee guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland saamaynta ku leh haddaanu nahay dhallinyarada Subeer Awal ujeeddadeeda guudi waxa weeyaan inaanu ku taageerayno odayaashayada salaadiintayada iyo guddida Subeer Awal ee maanta aynu joogno inay ka shaqeeyaan inay isu soo jiidaan guddiyada kale ee beelaha kale ee aan walaalaanahay si midnimada iyo wadajirka ummadda reer Somaliland ay u qurux badnaato garabkiinaanu taagannahay ha ka baqan inaanu leenahay salaadiinta kale iyo guddiyada kale ee la midka ah waa inaad la fadhiisataan u sheegtaan aad tustaan inaad leedihiin waynu tartamaynaa haddii lanaga guulaystana annagu markaasaanu soo dhigaynaa haddii idinka guulaystana dawaanaana hambalyaysaan si dalka iyo dadkuba uu badbaado dalladda Baraarug ee martiqaadka noo samaysay waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waanu idinka guddoonnay waanu idinka aqbalnay soo dhowaada waxaan kaloon salaamayaa bahda dhaqanka iyo bahda qaranka Itoobiya waxa weeye marka Somaliland ay xiriir la samayso waxay fidyoonayaan inay gaalo yihiin waa niman siyaasiyiin oo hadda wadaadda sheeganaya oo wadaadda sheeganaya laakiin waa siyaasi fidyoonaya marka xasan sheekh idhaa annagaa la heshiinayno la xaalaynana waa walaalaheen bay odhanayaan haddaba Itoobiya innaga ayay walaalaheen tahay waxay nagu leedahay abaalkii maalintii qasa kamay dhacaynin Hargeysa qasa sidaa loo garaacayo qasa iyo Khan Yunis iyo Rafax ayay gantaalo ugu dhacayeen maalin walba 500 oo kun oo tan oo gantaal dumarkii iyo carruurtii tii aynu hoos dhignay bay Itoobiya ahay
tan waxaynu kula soo noqonnay baa ahayd wixii ayna tartay abaallaawayaal mihinde 850 kilomitir weeye baddeenu waxaan oon lahaa 50 ha la siiyo halkii lahaa 20 baa la siinaya 50 ha la siiyo xaq bay noogu leedahay abaalkii nebi maxamed ay ku lahayd isagoo asxaab yaroo kooban haysta buu ammaan waayey etoobiya u diru halkaasaa joogaa malag aan la isku dulmiyi karin agtiisa bal u taga markaasuu soo dhoweeyu isagiina islaama abaalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwii abaalka ku lahaa iyo asxaabta ajar baynu ka helaynaa markaynu biyo siino ajar baabaynu ka helaynaa ummad waxaa horu maraysa waxaa kor u qaada hadday noqoto xagga waxbarashada haddii ay noqoto xagga dhaqaalaha haddii ay noqoto xagga cududa waa dhallinyarta adduunka waxaa la isdheeryahay waa sida ay dhallinyartu u fikirto mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku hambalyaynayaa dhallinyartan is-abaabushay iskood isku xilqaantay ee baraarug waxaan leeyahay waxaad qabateen waxaad garateen waxyaabo badan oo dad cilmi iyo caqli iyo cudud iyo cuud baydinka maxaa ahayde mudani ay na garan ka maxaa ahayde xukuumad ahaan iyo ka wasiir ahaan iyo ka salaadiin ahaan intaba garabkiinaanu taaganahay mar walba dadaalka bartaa ka sii wada